بسم الله الرحمن الرحيم maanta 13 June 2019 wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiisku waxay bilowday nidaam cusub oo dalka ugub ku ah oo wasaaradda agaasimayaasheeda iyo shaqaalaheedu maanta dalka Soomaaliyeed u bilaabeen taasoo ah sida uu qabo dastuurka iyo sharciga shaqaalaha rayidka ah ee dawladda in shaqaalaha iyo agaasimayaasha lala galo heshiiskaasoo qof walba loogu cadeeyo xilkiisa iyo waajibaadkiisa iyo saacadaha uu shaqaynayo marka maanta waxaan anigu heshiis la galay 13 agaasime oo ay agaasime waaxid oo ay leedahay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiisku oo mid walba la siiyay waajibaad iyo xil cayiman oo lagu la xisaabtamayo sidaas oo kale runtii wasaaradaha ayay ugu tahay mooyee xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre sidaas oo kale ra'iisul wasaare ula galay wasiirada commitment sheet wax la dhaho oo ah shaqada uu qabanayo oo leh xilli dhow hal sano iyo xilli dheer labadaba marka tiibaan aniguna implement gareeyay oo heer wasaaradeed iyo heer shaqaale u gudbiyay oo maanta shaqaalaha wasaaradda hortooda kula saxeexday agaasimayaasha waaxyaha nin walbana waxaa la siiyay tub ama qorshe cad oo waajibkiisu ku qoran yahay oo xilkiisa iyo inta uu leeyahay ku qoran yahay oo shaqada uu qabanayo waqti aysan ay ku qoran tahay dabcan waxaan dareemayaa in la dejinayo hoos loo dejinayo sharciyada shaqaalaha sharcigan maanta aad la saxiixanaysaan shaqaalaha ama agaasimayaasha ku bilaabeen maanta muwaafaqsan yahay sharcigii shaqaalaha rayidka ahaa ee dawladda waafaqsan yahay iyo dastuurka laftigiisa dastuurka qodobkiisa 23 iyo 24 farqadiisa afraad iyo sidoo kale xeerka shaqaalaha rayidka ee dawladda qodobkiisa 86 ayaa sheegaya in shaqaalaha lala galo heshiis sida adduunka oo dhanba ka dhacda adduunka oo dhanba ma jiro qofka waa in lala galo heshiis ku saabsan shaqadiisa iyo waqtigu shaqada soo galay iyo mas'uuliyadiisa marka shuruucda dawladana waa ku qoran tahay runtii waxaan isleeyahay wax weyn ayay bedeli doontaa insha Allah ta'ala haddii ma islihi way bedelaysaa sababtay u bedelaysaa waxa weeye shaqada wasaaraddan leedahay oo dhan baanu bishii ugu dambeysay qornay waajibaadkeedii sii jajabinay furuucu sii jajabinay kabacdina waaxyihii u kala qaybinay markaa kadib baa waaxduna shaqaalaha iyo madax qaybeedyada usii kala qaybinaysaa qof kasta oo wasaaraddan jooga wuxuu yeelan doonaa waqti cad oo 8 saac oo uu shaqada dawladda qabto iyo waajibaad cad oo uu qabto haddii uu qaban waayana qaabab kala duwan oo isdaba yaala ayaa lagula xisaabtamaya oo haddii dembiga uu galay uu yahay dembi culus soo dedejin kara in shaqada uu waayo qof kale oo shaqada qabta la keeno marka isla xisaabtan ruma oo warqad ku qoran oo waqti aysan weeyi marka inuu wax weyn bedelayo shaki